wasiirka hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland Siyaasi Axmed Cali Waxle oo ku sugan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay xarunta yaalaan gaadiidkii waqtiga abaarteena soo dhaaftay iyo doorashadii madaxtooyada ee 13 November ka dhacday dalka ugu deeqay inay dadka daadgureeyaan gaar ahaan gobolada bariga Soomaaliland waxaanu sheegay in dalka Norway uga yimi oo sidii dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa Siyaasi Axmed Cali Waxle ayaa qayb laxaad ka qaatay guushii xusbiga talada dalka ay kulmiyay uu ka soo hooyay doorashadii 13 November ee sanadkiina soo dhaafay isagoona ka shaqeynayay gobolada bariga gaar ahaan gobolada Saraar iyo Buuhoodle iyadana isiri bal kulli wada deegaankiisa soo aragtay xaaladiisa gaadiidkii abaaraha waagii hore aan kaga qayb galnay iyo campaignkii doorashada iyo diiwaangelintii dadka gaadiidka naftigiisii baan maanta u yimi si bal iyagana aan u diyaariyo haddii dee ilaahay inooma baahiya haddii baahidu timaado si dadkii loogu gurmado marka kulliba dee horena waanu idhi dawladdana waxaan jecelahay inay qayb ka qaadato oo dadkan sidii loogu diyaar garoobi lahaa abaarahan sidii wax loogala qaban lahaa iyadana la diyaariyo insha allahu tacaala marka gaadiidkan insha allah waxaan jecelahay dee hadda xaaladiisu meel fiican bay maraysaa wixii lagu qabsan karo waa lagu qabtay waa gaadiid military oo waxaan filayaa haddii dawladdu u baahato naftigooda waa gaadiid dawladdu isticmaali karto si aan loogu isticmaalin sifo khaldan marka insha Allah taala ilaahay wayna guuleynaya gaadiidkan tirada intee gaarsan ka baabuur far badan oo ilaa tobaneeyaha tan kalsi kala dambeynaya meesha ka muuqata oo qaari kamid yihiin kuwii ololaha iyo abaartii hore maartay sanadkii soo dhaaftay way ku jireen baabuurtan waan ku aragnay inay kuwii dadka gurayay ama dhaaminayay kamid yihiin marka baabuurtan de lambarko waxay yihiin kuwa shacabka meesha u yaalaan baba suurtagal ah ka waran siyaasi taa runtii anigu tabarucaadka dadkayga iyo deegaankayga iyo ummadayda waa waxaan uga soo noqday qurbaha wadanka Canada waan muddo far badan ku noolaaday waxaan uga soo noqday waa inaan ummadayda wax ku celiyo waxna taro wixii aan tari karo ilaahay baa wax tara marka gaadiidkan runtii waa ilaa iyo 12 baabuur oo isugu jira baabuurtan la yiraahdo TM-yada iyo baabuurta Animogyada iyo laba booyadood oo noocan ah oo min 100 foosta qaada wixii looga baahdo ee baahida ummadda dabooli karana waan ku daboolaa inta kalena wixii aan anigu dan ganacsi aan leeyahay baan ku qabsadaa marka runtii labada ujeedaba way fuliyaan waxaan keligay u isticmaalo naftayda oo ma kaliya maaha ummadana waan uga faa'iideeyaa sidaad aragtay way ka qayb galeen campaignkii waxay ka qayb galeen diiwaangelintii hore waxay ka qayb galeen tii dambe kaar qaadashada maanta deegaamada Saraar gobolka Saraar iyo gobolka Buuhoodle gaadiidkan aad iyo aad baa looga yaqaanaa buur iyo banaanbana way kori karaan oo baabuurtani waa baabuur sangeerayaal ah runtii maalin walbana dad dul taagan oo la naga iibiyo way jiraan laakiin waxaan door biday inta danaha aan leenahay ama ummadahaneed laga gaadhayo kulli doorashadii baarlamaankuna way soo socotaa hadii la yiraahdo cid alla oo calfaba marka waxaan jecelahay iyaga naftigooda inay qayb ka qaataan oo hadhowta hadii la yiraahdo sidii dadku ay ula soo bixi lahaayeen xildhibaankii ay iyagu doonayeen ku kalsoonaayeen ummadda wax u qaban lahaa aan isagu bariis u golaha baarlamaanka Hargeysa u dhex fariisto kaliya aan u tagaynina ummadan wax ku soo celin lahaa ummadan waxaad moodaa in qofku Hargeysa taga mooyaane ay aad u adag tahay in duruufaha qaarkood xal loo helo marka insha Allah waxaan jecelahay maamul daadejinta Muuse Biixi Cabdi madaxweynuhu uu ballan qaaday in xildhibaanaduna ka qayb qaataan oo xildhibaanada xafiis ku yeeshaan deegaamada ay ka soo baxeen dadkoodii tabashadoodana halka lagu ururiyo marka gaadiidkani qaybtaana way qaadan doonaa hadii la yiraahdo insha Allah taala marka taa laga gudbo mala waa laga yaabaa inaynu xaraashino hadii la yiraahdo waa yaal ciidan ducaale warbaahinta caalamiga Qornug News magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer